inaan lacag ku bixino lacag badan mar walba idin sheega Soomaalida waxa haysato dhanka hogaaminta weeyaan hogaaminta aan ka dhimanay marka haddii community shacabkii diyaar wax leeyahay inay bixiyaan cid maanta qof bini aadan qof eedeyn kara ma jirto sababtoo cid naga hortaagan malaha adiga ninka odaga hadda hadlaya guuleed hadda maanta istaagto tiraado center baan abaabulayaa sidan baa loo dhisayaa balan qancin kara dadka alle imaata lacag ka ururiso adiga maamulaya ma baantay laakiin dad ayaga tabar daran oo intii awoodooda ay lahayn qabteen ina anagana eed kala dusha ka sii saarno macquul ma aha sax ma aha ana waxaan ka warqabaa macallimiin quraan dadka ciyaalka bara oo quraanka ooga tagay because of waalidiintii lacag ku filan macallinkan uu ku fariistay meesha wax ku bara ma siinayaan $2,000 $1,500 baa bishii ka soo galaysa oo track aaday oo dhahay war aniga family baan leeyahay 4,000 5,000 ilaa 6,000 u baahanahay wadadaas aaday oo wadadii wada familiyadina way awoodaan markaas familiyadu waxay leeyihiin macallinkii online baa laga dhigay macallinkii waa tagay track buu aaday macallinka sababtu track buu aaday maxay tahay sababtu aad waxa waay halka adiga $30 bixinayso hadaa ka dhigto 80 ama 100 ka dhigto waalid kale uu ka dhigo waxa weeyaan macallinkaas uu fariisanaya intuu taraakiin la hadu ka helo uu fariisanaya laakiin America la jooga ha ka dhaadhicin qof adiguna halkan fadhi ilmahayga wax ii bar anigana aan shaqeysto oo mataqaana aan lacag badan sameeysto ha ka dhaadhicin dadka waa bini aadan sidaado kala ah soo fahmin marka waalidiinta way ciidan waxba bixineen gacanta adag waa waalidiinta maamul goboleed markuu imaanayo baarlamaan imaanayo Soomaaliya ka imaado hool baa loo keenay waxaas weeyaan waxa ragga waxa lagu bixinayo waxa wadanka loo dirayo waxyaalaha badan la sameeyo ciyaalka ma la geliyo systemka ciyaalka meesha ka maqan ciyaalka hadda xiran ee drugska barteen ee xabsiyada ku jiro isla coincident ma aha waa wax mataqaana lack of community engagement meesha ka maqan outreach ma lihin wax backbone ma lihin hooyada haday mataqaana ay kaligeed ilmi hayso way safar gareynaysaa xanuunkeeda ee qarsani dad waxaan garanayaa aniga ilmahoodii xabsi ku jiraan oo bulshada ka cabsanayaan inay u sheegaan ay dhahaan ilmahayga waa iga xiran yahay oo 10 sano lagu xukumay 15 sano lagu xukumay waxay dhahaan ilmahayga Soomaaliya u diray dhaqan celis ku jira ilmihiina xabsi ku jira mataqaana Minnesota ama Ohio ama Seattle meel buu ku xiran yahay maxaa dhacay drugs lagu qabtay opioid lagu qabtay waxa loo diray 10 sano ama 20 sano loo diray ama meel wax lagu dilaayo joogay ama waxba dhacay marka hatta community iskuma hadlayn karaan ma dhigi karaan ilmahaas ay xiran garab halisi maxaa dhacay wala dhageysanayaa marka dhageysto waxba loo qabanayo waxa leeyahay kan ugu fiican wuxuu leeyahay waa ku soo duceynayna ka kale wuxuu leeyahay war ilmahan adaa ma taqaana saas u galay aday ku taala abaanti marka anaga waxaan u baahanahay systemka yahuuda u baahanahay systemka yahuuda ay isticmaalaan wadankan waxa weeye waa system community-ga inta is ogol ee raali isku ah inay membership iska qaadaan oo isgarab qabtaan oo waxay isla og yihiin ay ku wada qabsadaan community-ga yahuudada ma aha inay isjecel yihiin ma aha yahuuda isma jecelo ee dantoodii midaysay Soomaalida waxay u baahan yihiin waxaan iskiilow Soomaalinimada iyo qof walba caawin iskiilow waxa gaari karta ma heerkaas gaari karta ma aha heerka u baahanta waxa waaye inaad 5,000 oo qoys 10,000 oo qoys is ogol inaad hesho membership ka qaado santarre ay sameystaan ciddi memberkaas clear ilmahooda ay kala soo qayb gasho markaas sheekada serious noqonaysa marka albaabka laga celiyo oo lagu yiraahdo community member matid adiga because ma aada bixinin dad baa waxay sameeyaan membership ka qabriyada lacagtooda intay bakheelaan ee markay dhintaan hadhow dhahan maxaa naga saana loogu galayaa qofka maana loo aaso war shalay markii kotokotiga iska rib waa dhuumatay maantana qofkaas haduu dhintay dadka lacagtiisa ma lagu aasaya marka dadka ma rabaan inay wax bixiyaan that's the problem marka dadkan kala aan eedeynayno waxaan u baahanahay inaan fiirino xaaladda ayaga ku shaqeynayaan ayaga inaan ogaano a lot of improvement ay jiro waxyaalo badan ay qaban karaan jirto ay bedeli karaan jirto laakiin xagga dhismaha community-ga lacag ku bixina meel kale lacag ku bixina I guarantee you that I'm talking about community badan aniga soo arkay la soo shaqeeyay haday tahay ku ajnabi haday ku Soomaali waa arkay si oo shaqeeyaan problemka xaggeenu ka jira waalidiintu ka jira صح واي هذا انت soo sheegto dhan sax waaye laakiin walaalkiis anigu midaan aaminsan anigu caruurna way ii dhigan jireen dugsiga ma fahantay
walaalow ama waalid ha noqoto ama waalid ha noqoto ama ha noqoto dadkii culimada iyo communitygii iyo dadkii ha noqoto meeshan arrintan caruurtan in la badbaadiyo ilaahay ka soko la caawiyo kuma jirto maxaa la dhahaye xoog ma la saarayo waxba kuma jiro qof walba shilin buu eeganayaa soo waxa garata maahan arrinta dhibaatada guryaha dadka ka haysatana waa qarashka walaal qarashka waxa waa inta yartu soo shaqaysto wuxuu suubinayaa Afrika la wadaagayso caruur badan bay dhaleen caruurta qarash bay u baahan yihiin Afrikana qarash bay u baahan marka dhibaatooyin la jiro laakiin aan waxa amisana waxay hadii la iska qaado reerkiiba ay xogaa la iska qaado la iska hashado kaashigaasaytu wax weyn buu qabanayaa laakiin aniga waxa isleeyahay way naga hurdaan community-ga wacdi gelin baa loo baahan yahay ما فهمت وعد القلم باللوبة هاي والله دمرك ويعلول شرعسين ولا على وح بحية صدقة بحية مساجد وح بحية وح بحية وحوضة والله هو الدمر ما أنت إيمن كعال كانت الله هو الدمر ما أنت إيمن كعال كانت هذا ما أنت دمقف ماشان صو صارنا ونقف أورنا وح أرورن هاي وح بحينا وح صدقيسن هاي هو الدمرك ما فهمت لكن محلو بهاي هاي وعي قلم باللوبة هاي ضد كي باللوبة هاي they minimize the risk ما فهمت dhibaatada iyo baahida yaa ka jirto dhibka ka jiro they minimize it walaalo wax ka hadla mideeda kale wax walba hunguri bay noqotay ma laga yaaba adiga aniga maanta hadaan diin aqaano qof aqaano nin rag aan ahay inaan maalin maxay adiga ajirka ka heli karta maxay tahay relationship ka caruurta isla yeelanaysa ama family la yeelanaysa maxay tahay yaa qabnaa ku dhahay flyer ku siinayaan adiga ma awoodaa inaan inta baxdinino ina baxda mideeda kale aabaha Soomaaliyeed gabadhu markay kala tagaan gabadh baa caruur ku rafaadsanay caruurtu waxay u waxayaan aabihiiba ka baxay hooyada ma u shaqaysaa guriga ka shaqaysaa ma ayaga ka shaqaysaa way adag tahay war qofkan hadaad kala tagteen caruurti meeday iska daa qof taanayto waad fahmi weydaa waa ku ori yaa reer badan oo Soomaaliyeed oo aabihii hooyadii aan isla joogo laakiin caruurtooda darbiga ay taagan yihiin koolad baalaayada ay dhuuqayaan oo hooyada laftirkeeda ay garab xiran tahay ma faham ayada laftirkeedii ma aqaan wax si ka mentally and physically caadi ma aha ninkii wuxuu ka cararayaa Charles Bor wuxuu leeyahay Charles Bor bay ugu hayso oo Charles Bor hadii lagu waxay ka badan bay kugu leeyeen xaq kugu leeyeen Charles Bor wax yar ba laga soo qaadi lahaa Soomaal yaani why maxaa xinka keenay maxaa xaasnimada keenay maxaa ma anaga isku dubnaan war aniga iga bilaab aniga diyaar baan u ahay wixii Soomaali lagu caawinayo dhalinyaro Soomaaliyeed ama program lagu suubinayo mideeda kale yaaba ku aaminki xataa ma lahan buu guri waatana ceebta noo taalo magaalada anaga maxaa naceebiyo Minnesota ceebta shaabada goonina nagu taalo maxay tahay Soomaali baa noo geysatay maxaa suubinaa marka culimadii u baahan anaga dadkii xaq iyo diinta ku tagaalamahayay ayaa u baahanahay waalidka waaweyn baan u baahanahay wiilasha culimada inay tagaan meelaha dhalinyarada Soomaaliyeed xaafadaha tagaan caruurta ka soo guraan حتى هالعقها كقاطن والد كودا لكن ما أنت هوية ديدا يسمى أنا مساجد كوكينا يا جارك شغال كوشب ديدا يسمى ما شرتو مركب محات هلا مركب what do we need to do محاسوبنا كان هذا أكيد واجسي أو فيري تصالح كله there is no excuse نينك ما ركتي مسؤول وحبرتي community كلامنا وشقيه هل ما لنا فسح مو سواين أو volunteer وصنايا هل ما لنا فسح ليه بري هذا شقيسته هل كمان لنا فسح عطاهاي إن community قد احتجته يا لذا دربية تاجن وحي أواني كرتو وحي مساج كيني كرتو وحي وحبري كرتو إن individual responsibility اسكو صارته absolutely وأنا ما قنتها وحيالها أدك أنا وحنا كمتاعي وحكى لنا أركي وحوي هدي community ما تقول هو شقينا يهدول هنا dadka qaar hadee iyaga ma taqaana aynan taladii ka go'eynin ama iyaga aan la soo tashan ama iyaga aan ma support garanayaan waxay leeyihiin hor aniga waxaan tanti guud waa inagu yartaa way naga maqan tahay midaan kale child support ka hadashay waa arrin muhiim ah weey yaani hadaa ilmahaaga adiga aad dhashay aad waxba siinin aad wax u ogoleen dawladda xog kaaga qaadayso you either pay them soo garan wax la iska baryaaya ma aha ilmahan adaa dhashay diinta islaamkana way cadahay mas'uuliyadooda adaa qaaday masruufkooda aduu ku saaran yahay
marka raalli ahaada ma le maqlaa waxaa iga soo galay kool haa marka qaad mas-uuliyaddooda wax sii ilmahaaga haddaad waxba siinayn dowladda xog kaaga qaadayso that's very clear child support systemka waxa loo sameeyo waxaa weeyaan waa systemka aniga aan jeclahay in Soomaaliya laga sameeyo xasbo rabbiyo systemka aan jeclahay waxaa weeye dowladda Soomaaliya inay tiraahdo nin walba oo Soomaaliyeed oo caruur dhalay haddaad caruurtaada biili karin oo aad biil bixinayn dowladda xog kaaga qaadayso